بسم الله الرحمن الرحيم وصدح لباتنك بشا لبي طبناد لبدا كون iyo 19 galab isniina madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu galabta qasriga madaxtooyada ee Garowe ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay oo hogaaminaya ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Adam Abdulmulla oo sidoo kale arrimaha bini'aadantinimada xafiiskaasi u qaabilsan kulanka waxa ka qayb galay xubno ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Puntland xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda Puntland saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda Puntland waxa kulanka looga hadlay shaqooyinka qaramada midoobay ay ka hayso Puntland si gaar ah arrimaha bini'aadantinimada madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu gudbiyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya in waxqabadka ay ka fulinayaan deegaanada lagu saleeyo baahiyaha hadba deegaanada ka jira ee dhinaca bini'aadantinimada waxaana uga mahad celiyay qaramada midoobay shaqada ay ka hayso Puntland ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Adam Abdulmulla waxa uu ka mahad celiyay soo dhaweynta waxaana uu sheegay Puntland inay ugu dambeysay 2002 xilligaasi oo Allahu naxariistay kula kulmay madaxtooyada Puntland ee Garowe Allahu naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland sidoo kalena ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu sheegay hadda marka maadaama hadda dib ugu soo laabtay ilaa ay xilligaasi isbedelada uu arkay Puntland inay yihiin kuwo runtii aad u ballaaran dhinaca dhismayaasha kobaca dhaqaalaha horumarada kala duwan fidinta maamulka iyo sida ay u horumartay Puntland waxa uu ku tilmaamay inay tusaale weyn u tahay Soomaaliya inteeda kale arrimaha kale ee kulanka looga hadlay waxa kamid ahaa hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu sheegay qaramada midoobay in ay ka go'an tahay dawladda Puntland hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo dhawaana dawladdu ay daahfurtay jadwalkii shaqo ee gudida doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland haddana ay si toos ah howlahaasi u socdaan si looga gudbo nidaamka hadda waxa lagu soo doortay Puntland ka jira waana qayb kamid ah buu madaxweynuhu sheegay arintaasi riyooyinka Puntland ka jira in loo guuro nidaamka xisbiyada badan sidaasna ay dawladda dhab uga tahay in loo hirgeliyo halbeegaasi muddo badan lagu taameeyay guud ahaan bashirku guul ayuu ku soo dhamaaday aad iyo aad buu mahadsantiin